wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga ida meel ka soo joogtaan waan idin salaamaya waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum maalinka habeenka waqti kasto ay ku tahay ha ku wacnaado walaalka Ismaaciil Arax haddii ay tahay markii kugu horeysay oo dabcan aad daawanayso waxa ka codsanayna subscribe-ka inaad taabato like-tana aan ku wada hadlin asxaabay waxaan codsanayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan hadda u dhownahay 2,000 oo subscribe 2k subscribe markii horena ayaantii hore barnaamijkan soo galayeen Soomaalida aad bay dhiirigeliyeen aad baa la ii taageeray dadka Soomaalida horta waa dad gobanimadii oo qof ah waa dadka Soomaalida haddana road waxaan u socdaa 2k inaan gaaro insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo de intaasna adinka iga dhisi doona hadduu ilaahay ka raali noqdo waa hagaag sidaad u jeedaan muuqaalkan quruxda badan oo aan doonayo caawa inaan idinla wadaago asxaabta waa muuqaal de another level waaye horta anaga Soomaali haddaan nahay soo dhaweynta sooridda waxaan in fact ka haysanaa number 1 ka nahay markii la dhaho qaaradda Africa I don't know dalalka qaar Afrikaanka ah inay naga sameeyaan laakiin as far as Africa is concerned I think we are the best among all African countries عربت حوالي laga yaabo inay challenge garan karaan laakiin soo dhaweynta aad ugu fiicanahay haddaba sida aad ku aragteen Soomaalida de war waa ogtahay oo naga horeysan oo social media oo ku wada jirtaan boqorada style-ka oo aad taqaanidoodii cidna aysan ku sheegaynin waxay maantay magaalada Muqdisho ee cariga dalka Soomaaliya ay ku soo dhaweysay halava her boyfriend manana her future husband I don't know how to put it in that statement saaxiibkeed qaaliga ah waqti badan ay wada qaateen ay qof actually I don't know even the right word oo in halkaas dhigo laakiin waxay soo dhaweysay Master Haykal oo ay xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo inkastoo de aan nolosheegan guur meelay ku soo guursadeen ama isku mehersadeen ana maqal laakiin waa dad xiriir jacayl ka dhaxeeyo marka magaalada Muqdisho ayay ku soo dhaweysay waxaana meesha ka dhacay wixii ay sameeyeen liicaato iyo Soomaaliyeed waa ogeed maalinkii umaanay macallin wada liicaato waxaan baartaan ku dhahay ma fahamtay marka de asxaabta xariif macallin jira abaayana boqoradana aan daawana qaabkii u soo dhaweynayso wah inkastoo ay ficnaan lahayd inay gaaga qaadadii waxa la ilaha waa filimkii American man amal way noqon lahayd anyway markasto iyo meel kasto ay joogtid oo ku salaamayaa runtii waxa dhiirigelin markasto noo ah in dadka Soomaalida ahi wax wanaagsan hadii guur waxaan la hadii wax wanaagsan waxaan la inaan la share gareyno waa wanaag waa markii horena waa idin sheegay amii hore ugu horeysay barnaamijyada idin soo duubi jiray inaan idin la share gareynayo wax macquul ah waxyaabaan waxay ka mid tahay soo dhaweynta in uu wali jiro wax la dhaho jacayl dad fara badan baa runtii jacaylka ka aamin baxay dad badan baa la qiyaanay dad badan baa waxay aaminsan aniga I no longer know what by the name called love laakiin love waa wax jira waaye waa xaqiiqda wax jira waa nolosha lagu sheegay jacayl waaye qofkii jacayl samaysto inuu guursado kadibna nolol macaan uu ku noolaado noloshaas macaan lagu sheegay waxay tahay jacayl waaye marka wala soo dhaweeyay asxaab badan oo kala duwan baa ku soo dhaweysay Haykal magaalada Muqdisho waxaan ka warqabnaa boqorada laftirkeeda maxaa la jiray in lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland marka de Soomaalidu dhinaca dhaweyska de cid nagu haysata malaha haddii aad ogtahay cid nagu haysato you can bring it on the table you know that marka anyway guys subscribe-ka like-ta sharing-ka wixii uu video-gan uu ka mudan yahay samee ma jecel inuu video-ga si dhameeyo inuu sii socdo hadduu sii socdo video-ga waxa laga yaabaa inuu san de mar walba waxa la wixii gaaban baa qayb ku jira qayb badan baa idin rajeenaya please waxaan rabaa inaan gaaro 2,000 subscribe inta ka dhiman bisha
taasna ma hirgelin karo haddaan adiga support gareynin intaan barnaamijka noocan oo kale ku kulmayno waa araxo idin leh maalinka habeenka waqti kastoo ay ku tahay ha ku wacnaato I love you guys